إن شاء الله سين كوبا لنا step كلا بعد نسمين دونه estimation كيسوا حوي plain concrete كا طبعا سيدو كلاتو سيد عادة إنه واحد طبعا sheet بنان سانو كلاتو يعني لصوب حيان أوكي sheet كورا خلاص كي هرا محوها أو excavation سيدو كلاتو حركة إنه يلا وحوها drawing أنتي أنواع مح excavation estimation كوسو مثلا سوق section ساسو كلاتو خلاص على جنبي ولا هي لين عيا ودقيقة هذا خلاص plain concrete reinforced concrete متكسر سيديو كلاتو أم process كي هراء عمر نقلتها إنه مرينا سيولتي شقة منظمة شق قروح بدن قف كستولتي وسمعين كرام ريفيجن أي نقطة مثلا هذه ولتي مستقبل كسيدو كلته خالد يماذا وكلته يوسهل لنا تاني أنا شقة دب ونقطة مش خالد كجرينا وصوص عروان أوكي برجع سيجود بيان طبعا وحصوق هذا يان بلين كونكريت كيجي مركز هذا مثلا مشروعي هذا مثلا عن مرة بعد سي أو سأقوله اوكي halkan banaanka ayaan keensanaya asagana okay sidii oo kale to banaanka ayaan keensanaya okay isla khalaas soo qaado boxkaaga hore oo kale to ayaa saan u gashanayaan okay si shaqadeedu xoogaa ay hodoti ay u qurux badnaato hodoti qoraalkayga sidoo kale to soo qaado halkan soo dhigo مثلا okay kan maxaan dhahayaa marka waa plain concrete okay waa maxay waa plain concrete kayga طيب marka plain concrete kayga waxaad arkaysaa waa maxay in halkan plain concrete uu yahay area-dan sare okay kan gudaha ku jirana waa maxay inuu yahay reinforced concrete keeni tamam fa waxaan rabaa marka inaan soo qaato مثلا area-dan sare ayaan select u leeyahay iyo qoraalka labadaba inaan qaataan rabaan labadaas aan rabaa inaan soo qaato tamam marka maxaan leeyahay isolate halkan qaybta sare daarta waxaad arkaysaa isolate tamam maxaan leeyahay iyaga bas itusi isolate waxa igu sameeysaa waa maxay labada shay aan select aan saartay haddaan saa kaliya u siiyo waxaad arkaysaa waa maxay inuu isiinayo isolation qoraalkii iyo waa maxay iyo area-dan u baahnaa balse waxaad arkaysaa halkan qoraalka maadaama isku layer ay ahaayeen in waa maxay ground beamkii qoraalkii ground beamka waa maxay saa igu soo qaatay laakiin hadda mushkilad ma lahan waa iska tirtiri karaa dhib ma lahan marka waxaan sameynayaa copy ayaan saa u leeyahay aan gees ayaan saa u keensanayaan okay waxaan sameynayaa marka unisolate waa maxay yani ama layer off maxay dhamaan waa layer on ba layer dhamaan waa maxay shaqadii sidii hore igu soo celiyay baan leeyahay shaqadii sidii hore igu soo celiyay waxaad arkaysaa waa maxay intii hore dib igu soo noqday halkan inaan soo dhigtay aan reinforced concrete keena marka hadda waxaan iska masaxayaa waa maxay plain concrete keena waxaan iska masaxayaa waa maxay marka qoraalada tan I don't need uma baahni aan waxaan u baahanahay bas waa maxay inta aad arkayso tamam qoraalada tan oo dhan iska wada delete si blankeeni uu sida tan qurux ugu noqdo tamam maxaa laga wadaa laymankaas waxaad arkaysaa halkan في حاجة هنا صح كسي فكر انت aan iska dhiliidayaan markaan intaan dhiliido بالضبط يا اخي ما انت مشكلتك كاستمحي tahay maanta dhan pop up igu sameeyay maanta dhan igu soo noqonaya oo risaaladaas message kaas oo tirisk mushkilad baa ka jirta waxaan maleynayaa barnaamijku waa barnaamij karaag ah fa mushkilada tira badan iska imaan karaan anytime yani ma fahantaan marka iskaga dulqaadanayna dhib ma lahan waxaan sameynayaa marka qoraaladeedii ayaan isaga dhiliiday aan u baahnayn aan طبعا halkan waxaad aragtay waa maxay laba qoraal halkan ka tagayaan sax iska dhiliiday waxaad aragtay waa maxay halkan calaamada waa maxay plus iyo maxaa laga wadaa mashruuc hadan dib ugu noqdo waxaad arkaysaa waa maxay halkan iyo beamkan ground beamka korkiisa ayaa maxay calaamada plus asaasi u yeeleen طبعا calaamadahan waa ishaarooyinka meesha ay ka bilaabanayso silimka meesha ay ka bilaabanayso jaranjaradeeda طبعا كل طبق قوي marka jaranjarada meesha ka bilaabanayso marka jaranjarada meesha ka bilaabanayso waxaan u baahanahay xad bir ama xadiid ka soo baxda ground beamkayga soo wax garatay ma meesha ka bilaabanayso way sax laano dhati يعني سلم وحكان waa maxay ku fariisanaysaa waa maxay jaranjaradeedii marka xadiidkii waxaan ka bilaabanayay yani birta سلمka ama jaranjarada ayaa waa maxay aan sample saas oo kale u dhigtaan marka خلاص hadda marka calaamada uma baahnayaan ماشي marka waxaan sameeynaa waxaad arkaysaa waa maxay area-deedii hadeertaan ma ahan ma dhamaystirna marka waxaan sameeynaa extend yani area-si ay isku kay xirmato sorry extend enter okay si waa maxay area-deeda ay saas kale isku kay wada qabsato marka waxaan dabcan waxa dareemay shaqadu inay dheer tahay intaan on extend u wada baahan tahay fa hadaan video-ga aan saa ku sii wado video-ga
u dheeraanaya marka videoga بالضبط waan joojinayaa aan extend ayaan ku wada sameynaya kadib ayaan videoga dib u bilaabaya aan oo dhameeyay si waa maxay videoga timekiisa uu inoogu yaraado okay pause okay adan dib u soo noqono waxaad arkaysaa waa maxay wax yar inoo dhiman insana insha Allah 1 minute ayaan ku dhameynayna wax yar okay taas ka qabsatay laakiin dib malahan halkaasna iska ka qabsatay dib malahan ana saxay labadan isqabadsi labadan gaabkan isqabadsi dabcan meelahan banbanaan oo meelihii ground beamka iyo strap beamka ayaan ka jarjaray ma fahantaan waxaad arkaysaa marka khalaas intaas ay ugu dhamaatay laakiin waxaad arkaysaa leeman sidoo kale extend ii sameeyay pointiyaan u baahnaynaan marka laakiin wali maxaad arkaysaa hoos hadaa fiiriso extend amarkayga extend baan ku jiraan marka waxaan taabanayaa waa maxay shift haddaan taabto amarka extend wuxuu isu bedelayaa trim okay shift ayaan soo leeyahay trim ayaan leeyahay khadkan uma baahni okay كان خط كان اسقبتسي sidoo kale shift خط كان naga dhigay okay خلاص خط halka mid kale halka haray mid kan iska dhigay tamam خلاص marka area saasan u dhameystaa saasan ayaan iska kansalaya okay marka waxaan leeyahay marka haddaan saa usoo fiiriyo waxaad arkaysaa halkan F1 mid kasta magac inay waa maxay saa igu taalo F1 ilaa iyo numberka ugu dambeeya waa maxay F5 ilaa iyo F5 marka inti F1 ana hal mar baan xisaabinayna inti F2 ana hal mar baan xisaabinayna inti F3 hal mar baan xisaabinayna inti F4 hal mar baan xisaabinayna inti F5 na hal mar baan xisaabinayna okay sheetkeena dib ugu noqono sheet saan kale taayaan sameysanaynaa sidoo kale tikiyo kale ma fiish farq waxay ku kala duwan yihiin description kii isbedelay bas description waa maxay meter cubic baan dabcan ku cabirayaa aan wuxuu leeyahay waa maxay ordinary made way soo xagaratay maaha ijhaadkeeda ama waa maxay waa inuu san ka yaraan 200 km per meter cubic inuu san ka yaraan teeda kale to inuu noqdaa uu cementiga isticmaalaysa self weight resistance ama waa maxay ay cement ma fi porcelain caadi waa maxay uu isticmaali karnaa waa maxay markaynu plaster ka isticmaalayno waa shaqada dhulka korkeeda porcelain cement ayaan isticmaalnaa badanaa laakiin self resistance mid ah jira waa maxay dhulka hoostiisa waxyaalaha asaasaadka foundationska loo isticmaalay si waa maxay halka cusbada ku badan sax waxaad u baahan tahay waa maxay cusbada iyo waa maxay biyaha ku soo weerari kara mustaqbalka waa maxay ground water level ka oo kale tadu dhow yahay in waa maxay uusan footing kaagi aysan dhibaato soo gaarin hadii footing kaagi dhibaato soo gaadhay yani xadiidkii birti ku jirtay ayaa waa maxay dib soo gaaraya oo waa maxay rusting ama corrosion ku dhici kara waa maxay daxalaysan karta hadii daxalaysatana cracking iyo waa maxay failure ayaa waa maxay aad khatar ugu jirta inuu dhaco markasta waa maxay cementiga aan isticmaalaya waa maxay dhulka hoostiisa markasta in self weight resistance ay ahaato aad iyo aad bay wanaagsan tahay okay marka wuxuu ku leeyahay marka خلاص curing مثلا waxa sameynaysa curing waa maxay ilaa inay waa maxay aysan ka yaran curingka inta sameynaysa aad 3 maalmood curingka waa maxay in marka aad shubtido kale inay biyo ku rushaysid aad tamam fa yani description aad iyo aad buu muhiim yahay okay sorry جدا موطا ay agteeda maraysa fa codka waxa dareemaysa waa cod ziyaada inuu soo baxay okay خلاص dhiman marka waxaad arkaysaa curingka inuu ku leeyahay 3 maalmood inaysan ka yaraan ay sidoo kale wuxuu ku leeyahay maxay inaad ilaaliso waa maxay standardka iyo maxay shaqadu ay leedahay dabcan shaqo kasta standard bay leedahay iyo waa maxay markastana inaad maqasho this point muhiim weey instruction of the consultantiga mashruucaaga in aad waa maxay aad markasta تعليماتكيس أما أوام محي أوامرتي سنة مركز تلقيسوتا ينير باتاي مركز consultant كاسر هي جرا طيب مقعد consultant هذا طبعا بإنجنير هذا أنا يرى الصومالي طبعا أوام محي متكستمر مكتب وغيره consultant يوقو قرطاو فيعني مقعد يروح بس كنا أي كلام consultant يعني مقعد ودي سلوي عيد كستنا consultant من النقطة طبعا صح راح حسوس أوام محي دكتور جامعة إيديكا وكيل كذا أو حويه faculty engineer engineering soo xagaratay ma engineering oo dhan wakiil buu yahay oo 2020 oo ninka dabcan waxaan ku qiyaasi karaa waa maxay 60 sano 70 ku dhow soo xagaratay 2020 sanadkan hadirtaan aan ugu jirno bilowgiisii ay wuxuu qaatay darajada consultantiga wax darajo la qaatay way mush ay kalaam adu inta iska qorato مثلا ama soo xagaratay ma mudayir adu engineer waliba waa maxay بسيطة أنا ترى consultancy معنا هي أما consultancy معنا شغالين كconsultancy كان قبته استشارة يعني وحبات استشارة يعني سفر قف consultancy حلو بها يوم محي أي شغل لا يكره وام حلو إنديه سكو أركي فإنجنير طبعا لبس أنا 3 سنة حلقة يا بكورنا جامعات كصوب حد أوكلته درجة السبت كجاري كرتها وام محي سفوض هي زوجة كرتها ما صدق كيف حتى لو كلمات الكلين مركا consultancy طبعا ما خطرتي سوتوي مركز أنا واحد جعل أنا إسك إلى على إنه waa maxay darajada aan nafteena ku tilmaamno ama meel kasta wax ku xayeysiinayno inaan magacana inaan isticmaalin lana magaca kan darajadiis engineer waa tahay خلاص ماشي marka sanadka ugu horeeyay jaamacada bilowda engineer baa lagu yeeraya صح
هذا وليه freshman لكن consultancy لا درجadiisa aynu siino markaas aynu ku fududaan okay marka خلاص yani ku dheeraan plain concrete waa kana tamam fa marka waxa sameeynaa marka magacyadeeni okay F1 F2 F3 F4 F5 صح waa maxay fuutinadeenni intaynoo yaalla marka xogaa distanceyadan aan siyaasana si xogaa ay inoogu muuqato waxyaalaha aynu qabanayno sorry F5 kalkan keen tamam F5 kan xogaa ziyaada isagana si xogaa shaqada aynu qabanayno aynu waadax inoogu noqoto center ka dhigo shaqooyinka oo dhan marka waa kaas okay marka F1 aynu dib ugu noqono marka halkan area miyaan wax ku xisaabinaya misal length iyo dherer baan wax ku xisaabinaya labadaba qaab baan isticmaali karnaa labadaba way intusayaan dib hadaynu ugu noqono waxaad arkaysaa waa maxay خلاص F1 halkan F1 itaal F1 number 2 3 iyo 4 5 yani numberku aad buu badan yahay maanta marka indhaha saa uma tirin karaan marka waxa jira amar waxa jira la yiraahdo filter okay filter hada saa tiraahid okay filter ayaan saa u leeyahay wuxuu ku leeyahay add select objective maashi waxaan leeyahay kana okay marka saa select u dhaho listigiinu isii ahayd way sorry عندي بقول نقطة filter okay add select طيب ودي الدنيا مشكلة مالها okay حندي كرا ومحي إن أن مثلا عنده find this أمر كلمته مهمة find ده تمام find محط find كلام نسوي كلية ماشي F1 سيقرنتها مرة وين قرته أوكي تبدأ أطلع فيرنيا F1 ساسا نقرأ أوكي if find كلام عندها يعني وكلية وام حي لا F1 صح أيوة فحقيقة بعد ساعة تمام تبقى نقول سوري cancel لأن هل مدبن هذا select الموقع ساندي دي أمر بدن بهجرة مركب متك أدي كوس على كوشقيسو find ماشي F1 e find كلام عليها حقيقة إيجا find كلام area دندن أنا وام حي أن highlight كرستي find ينسى أولي وحول كلية وام حي سدح إيه طبعا حضرك يسوى وام حي يا عم خلاص بقى هذه ما ترى وانا بدي أليس هذه سدح إيه طبعا شير بو F1 هلاي تمام فواحد أركز F1 إني صول على لعبتي سدح إيه طبعا شير أوكي فخلاص أدي أتبع ما سنتهي شكرا دان به أتبع ما سنتهي تمام سدح إيه طبعا شير دي بان إكسل شيت كنا نقول نقولنا حلينا F1 نمبر كنتيجر بوها سدح إيه طبعا شير ماشي خلاص waxa sheegtay area-daada ama length ama distance waa maxay wordtigaaga marka laba qaab oo sameyn karaan qaabka hadan saa u soo dhaho masuuli hadan qaabkan awi AutoCAD-kiga kana hadan qaabkan saa u dhaho midalan aan dimension dhaho waxa arkaysaa waa maxay inaan طبعا dimension-kiga carabi way hadirtaan wili kama bedelin laakiin dib ma lahan hadan saa dhaho English aan u bedelo annotate kan hadrahda aad annotate كيس ما مع إنجليزي يكون خلاص أوكي مركو حالك يسوى محي إن دنا وياه لو متر إياه طبعا دنا إنه يه متر إياه ومحي يسديتن يشان هذا ربما محسبين كلام قاب كورو كله خلاص محسبين كلام ومحي إن عنده كان إنسان عنده list area ده هالمر سو كشيء تيبو كيري سدح متر إياه وحكير ومتر إياه سجاشن إياه أفر بوينتي سجاشن إياه أفر يا متر سجاشن شان سكان متر سجاشن شان يعني لابد نمبر بسوق عارف أنا أوكي دارت إن الكالكولاتر كسيه بستي ده ما فهمت مركز توحد على هاي أنواع محي استيميشن كأن سمعنا إن المركز إسكهوبي لأن النمبر كسته أنقريه هو تولع عق نمبر كسته أنقريه هو تولع عق العق بقوله تبع محي صو صار يا مركز إسكهوبي متر ستيتني شان حاطقول فتاة لا متريو طبعا أمسح سدح متريو ستيتني سديد طيب ماشي مركان سببه مركان أنا هركان area كلا تيجي صو صار يقول سوري أنا كان إسكسر لابو سانده كان ده MO لي أمر كلاته MO area ده selecting كمان مثلا area كان كبر وكسر area ده مثلا 6.1 أنت كالكولاتر كيسو صاري مرك أمر كلستي حضر كيسان محين خلد يسو صاري هذا تكيهرا كوسعون لها وام محيان اسكهوبيان حلقة يابين نمبر خلدان قاعدان لها هدوتين مشكلة وام محي إيكين اللي هذا مركز اسكهوبي وميت 6 متر يا وام محي 6 iyo 8 ama waxa sameyn kartaa maxay khalaas yaan maadaama aanu dhigto isku dhufashadani waxyaalaha kan ay dhibeyso ay
خلاص حنسمين كرا waa maxay inaan sheetkay ku soo noqdo aan dhahniyo area tan soo waxa garatay ma laba raba inaan kala jarto marka waxa sameeysaa aad merge ka qaad laba qaabs uga dhig okay ma fahamtay labadan marka isku merge garay okay waxaan dhahay waa maxay dhanna muxuu ahaa dhanna 2 mitir iyo 1 mitir iyo 2 mitir iyo 10 buu u ahaa dhanka kale tan intee buu ahaa hadaan dib ugu noqono sorry hadaan dib ugu noqono dhanka kale tan mitir iyo 85 buu ahaa dhanka kale tan mitir iyo 85 adoo runtii xisaabiyaan balaayha area ma soo qaadanay waa maxay lirti sorry waxaan sameeyay arkan height-kii baan ku qorayaan mitir iyo 85 buu dhanka kale tan ahaa sorry laba area saas waxa asma 2 mitir iyo 10 dhanka kale tan wuxuu ahaa mitir iyo 85 saas oo kale to cadadkiisu intee ahaa waxa uu ahaa 13 height-kiisu intee yahay marka qaybta aan isticmaalay waa maxay waa plain concrete height-ka marka xageen kala soo baxayaan naqshadeedan kala soo baxayaan hoos baan imaanaya naqshadeeda ayaan imaanaya haddaan dib ugu noqdo waxaad arkaysaa waa maxay f1 waatana f1 plain concrete-kiisu waa mise waa 30 cm thickness height-ku waa mise waa 30 cm marka waxaan leeyahay waa maxay waa 30 cm saas oo kale tamam marka خلاص f2 ma sameyn kara hadda sidoo kale ha f2 waan sameynaya aan kadib video-ga waan joojinaya f3 f4 f5 waan sameynaya hal mar si waa maxay video-ga hore uu sii socdo tamam marka f2 waan sameynaya f2 waxaan rabaa marka cadadkeeda intuu uu leeyahay hadaan saa soo qabto halaya marka dib ugu noqo خلاص waa kana soo kan ma haynay select highlight hal mar saa ay wada saar select hal mar saa ay okay amarkeen maxaa find filter waa isticmaal kara filter haduu ku socdo waa ka saar hadii waa maxay uusan ku soconaa dhima lahan f2 waan rabaa marka inaan find gareeyo sax find baan leeyahay intee jeer biso saaray 6 jeer waa maxay f2 ah ayaa waa maxay soo noqo waa maxay meeshan ii yaala 6 jeer oo f2 dan f2 aan xisaabino 6 jeer waa may 1 2 ay 3 4 5 6 kaas 6 jeer way meesha f2 ma aragtaan may 6 jeer way tamam لحد جير اكسل شيت كان كوسو نقول حدينا نمبر كو امسا ولا 6 جير 6 جير كوسو نقول طيب waxaan dimension kiisa waa imisa dib aan ugu noqonay hal mid f2 aan nimaano tamam waxaan dhahay dimension tamam hay dhankan intee u yahay sorry arabi wadan marad maana oran so dimension annotate kan markasta annotative igu fariisan si waa maxay english igu noqdo okay dimension hay kan halkan to halkan خلاص كذا baan ka bedelayaa marka حدريم زوا محي أنا أخبر برشاد عربي وبنيت فشغل كيون عربي بدنا أكو شقي سنجران هذا نسكت دي هنا إنجليش كان صوبيرو يسيك لغاته هنا تمام لو متري لباتن دن كلتن لو متر كونتينيشن تمام هركان إمو لو متري لباتن دن كان لو متريو كونتينيشن thickness كنتيوي طبعا F2 وإمسا نقشة دي بقول نقو أتنا سوري أتنا F2 plain concrete ku ayimisa plain concrete waxa arkaysa plain concrete ka oo dhameystiran horta thickness kooda ama height kooda inuu 30 yahay marka خلاص 30 ba kulli ka wada dhigayaan tamam si waa maxay igu soo noqon 30 tamam fa 30 kan marka ilaa iyo waa maxay f5 kan waxaan sameeyay dib aan ugu noqdo si aad u fahamtid f2 calaamada plus kan ka soo qabsaday aan ilaa iyo waa maxay hal mar baan hoos soo weeymaan tamam خلاص mid kasta marka waan sameeynaya aan video-ga joojinayaan cadadkeedan keenaya video-ga ayaan waa maxas bilaabaya markaas kadib insha Allah pause okay waxaad arkaysaa marka hadda خلاص inaanu f3 iyo f4 iyo f5 aynu intaba aynu soo sameeysanay طبعا hadaynu halkan numberada aynu tirinay inta 14 aynu haysan waxaad arkaysaa 13 markii 6 lagu daro waa 19 laba ku dar 21 3 ku dar waa imisa yani 24 14 dan dib sa ugu noqdo waxaad arkaysaa aad total inay yihiin iyaguna 4 hada xisaabisid yani laba kore ilaa 4 intaas waxay isku yihiin waa maxay 10 ilaa iyo waa maxay 8 halkaana waa imisa 8 iyo 10 ilaa iyo ilaa halkaan 6 okay marka waxaad arkaysaa 24 inay saa inoogu yaalaan mid kasta waxaan soo qaadanay dimensionkiisa oo dhameystiran ماشي dimension kiisa dhameystiran inaan soo qaadanay kadibna aynu waa maxay aynu saas u sameeyay marka halkaan waxaan sameeynaa addition dhamaantood waa addition waa maxay reduction inoogu ma jiraan okay equal products tamam equal product yani waxaan leeyahay waa function isku dhufashaan okay halaya marka waxa soo dhufata intaas dhamaan madax soo gali okay saan waxaan rabaa inaan soo saaro aan
F1 oo kaleeto intee waa maxay plain concrete ayaan waa maxay aan u baahnaa dhammaan routine waa maxay totalka hoos baan ku xisaabinaynaa. Okay, inta ayaan saa u leeyahay waxaad arkaysaa 15 meter cubic in waa maxay aan u baahanahay aan marka calaamadan hoosaan saa u soo qabanaya waxaan hal mar baan leeyahay dhammaantood hal mar saa isugu xisaabi waxaad arkaysaa mid kasta inta aan u baahanahay in aan saa u soo qaatay aan in waa maxay saa igu xisaabiyay inta meter cubic aan u baahanahay مثلا shub plain concrete okay waxaad arkaysaa F5 inaan halka number 1 ii taalo F5 haddii dib ugu noqoto waxaad arkaysaa inay ahayd combine footing. Okay, fa hal waxay leedahay hoose hal plain concrete iyo hal waxay leedahay reinforced concrete marka taas niyada ku hay tamam marka khalaas haddaan sheetkayga saa ugu soo noqdo waan boobsiinayaa aan dhammaan stepskan marka waxaan rabaa hadda khalaas haddaan hore u aragnay totalka automatically waa maxay sheetka ay xisaabiyay intaan isugu soo kay daray. Okay, quantity-ga oo addition kii oo isugu soo kay daray wax subtraction ma jira maya waa 0. Okay, type totalka marka ugu dambeeyo waa imisa 28.5 meter meter cubic. Okay, marka hadda waxaad arkaysaa haddaan dib ugu noqono thickness keeni in ino ka badnaa uu 20 cm. Okay, marka waxaan rabaa halkan in hal point taabto waa maxay haddii thickness ka sawir مثلا sawir aan soo qaadano haddii thickness ka plain concrete kaaga uu ka badan yahay 20 cm waxa aad ku xisaabinaysaa meter cubic pointiga aad buu muhiim u yahay haddii مثلا 15 cm 20 cm haduu ka yahay 15 cm baa haysataa مثلا waxaad haysataa مثلا inaad 10 cm haysato waxaad ku cabiraysaa u dhowtii waa maxay meter square يعني iska ilaawaysaa waa maxay thickness ka laana cad خلاص يعني thickness wax aad u yar tamam fa ma xisaabin yani waa maxay sheetkaygi waan iska ilaawayaa u dhowtii waa maxay thickness kaas waa iska liidaya kaana waa maxay waxaan leeyahay waxaad samaysaa waa maxay labada dhinac iskugu kay dhufo labada dimension uu haysto kadibna cadadkii ku dhufo bas tamam fa taasna waa point aan muhiim maadaama hadda marka 20 cm ay waa maxay ka ziyaadsanayd footing keeni dhammaan waxaan u isticmaalnaa waa maxay thickness-kii xisaabtu inoo soo galo. Okay, marka خلاص reinforced concrete ka inoo haray reinforced concrete ka بالضبط يعني waxaan dhihi karaa waa maxay waa plain concrete kii يعني soo ma sameyn karna hadda reinforced concrete kii maxay ku kala duwan yihiin dhammaan waa F1 nadii F1 F2 F3 يعني jadwal haddaan dib ugu noqdo haddaan jadwalkayga saa dib ugu noqdo خلاص waa maxay hadda waa maxay plain concrete kii way soo ma خلاص marka hadda waxaan sameynayaa waa maxay waxaad ii qaadataa waan leeyahay sorry waxaad ii qaadataa waan leeyahay kan iyo qoraalkan intaan hal mar ii qaado. Okay, CO tamam hoos ii keen tamam halay marka hadda hadda waa maxay halkan waa reinforced concrete halkan waa maxay reinforced concrete reinforcement concrete tamam move zahan mar soo dhigeys xogaas aan soo durjin si centerka igu noqoto sorry move tamam reinforcement concrete. Okay, marka hadda maxaan sameeyaa marka hore maxaan highlight gareystay plain concrete ka hadda maxaan highlight gareysanayaa aan qoraalka iyo waxaan highlight gareysanayaa waa maxay plain qoraalka iyo waxaan highlight gareysanayaa iyo reinforced concrete tamam waxaan leeyahay amarkayga hadaan home dib ugu noqdo isolate waxaan isolate gareysanayaa sidaan qaabkan tamam waxaan sameynayaa marka hal mar intaan copy soo dheh waxaan keensanayaa geeskan oo yar baan soo durjinaya. Okay, waxaan leeyahay marka layout okay on ayaan soo leeyahay dib ayaan soo ceshanaya. Okay, marka خلاص ayaan maxaan sameynayaa intii yani step يعني typical steps ka aan marnay ayaan maraynaa ma sha Allah ma fiish ay wax farq u dhaxeeya labada dhinac midna ma lahan. Okay, marka خلاص marka mid kasta waa maxay F1 F2 F3 bay leedahay ay soo xagaratay ma sheetkayga ayaa dib hal mar saa ugu soo noqonaysa maxaa bedelaysaa bas plain concrete ka maxaan ka dhigayaa aan reinforcement concrete tamam F1 F2 F2 waa ii leedahay bas maxaa cadadka numberkii waa maxay numberka isla numberkii sax numberka marka waa maxay hadda waa maxay waa intii uu jooga maxaa isbedelaya bas dimensions kana isbedelaya bas tamam dimension kana isbedelaya bas tamam fa maxaan sameynayaa marka dimensionada ayaan soo qaadanaya dib baan ugu noqonayaa design-kaygii soo xagaratay ma dimensionada ayaan soo qaadanaya si kii hore kale u soo qaadanay kadib waa maxay halkan ayaan ku soo buuxsanayaa tamam kadib waa maxay totalkii ayaan soo xisaabinayaa inta quantity aan u baahnay meter cubic tamam sidoo kale tan ayaan ilaawin maxaan bedelayaa aan description-kayga. Okay, description-kayga intaas aan u bedelayaa tamam marka hadda halkan maxay يعني خلاص ما شرحي waa maxay reinforced concrete ma sharaxay laana plain concrete ma sharaxay fa بالضبط waa maxay numberada un baa isbedelay yani marka hadan design ka ugu noqdo waxaad arkaysaa waa maxay meesha
plain concrete ka haddaan jadwalkiisa ugu noqdo waa kana plain concrete waa wal xisaabiyo soma hadda waa reinforced kii tan maxaa isbedelay bas numberadii baa isbedelay iyo waa maxay thickness ka awal 30 cm buu hadda waa maxay 50 cm qayb kamidana 70 buu tagay تمام انت بaan bedelayaa bas number iyo waa maxay dimension kan baa soo qaadanaya ama waa maxay khasab ma ahan مثلا marka hore maxaan ka xisaabinayaa aan sawirka laftigiisa ayaan ka xisaabinayaa soo xagaratay ma yani hada sawirka inuu noqdo sawirka laftigiisa ayaan dimension ka qaadan hada rabo hada waa maxay maxaan sameyn karaan jadwalka laftigiisa ayaan ka soo qaadan karaan maxaan dhigi karaa waa maxay khalaas jadwalka f1 waa imisa meter iyo waa maxay inta saddexda number ba automatic intaan soo qaato baa waa maxay waxaan ku baasti gareyn karaa aan halkan 1 2 3 taas ugu baasti gareyn kadibna waa total ka insa xisaabinayaan okay marka insha Allah waxa inoo haray ground beamki bas waxa inoo haray ground beamki خلاص intaas aan ku joojinayo videogan assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh